Conversation wada sheekaysi. Conversation oo wada sheekaysi. If we make haddii aan sameyno comparison isbarbardhig between u dhexeeya English Ingiriis and Arabic iyo Carabi. Which language luqadeeba would you prefer ayaad dooran lahayd to learn inaad barato? If we make haddii aan sameyno comparison isbarbardhig between u dhexeeya English Ingiriis and Arabic iyo Carabi. Which language luqadeeba would you prefer ayaad dooran lahayd to learn inaad barato? I would prefer waxaan dooran lahaa Arabic language luqadda Carabiga. I would prefer waxaan dooran lahaa Arabic language luqadda Carabiga. Why do you prefer maxaad u doorataa Carabiga? Since you are aware of adigoo ka warqaba English Ingiriis is inuu yahay the world's first language luqadda ugu horumarsan ee adduunka. Why do you prefer maxaad u doorataa Carabiga? Since you are aware of adigoo ka warqaba English Ingiriis is inuu yahay the world's first language luqadda ugu horumarsan ee adduunka. Because maxaa yeelay Carabiga is the language waa luqadda of Islam ee Islaamka. It is the language waa luqadda which taasoo the Holy Quran-ka was written on lagu soo qoray. So sidaa darteed it is compulsory waa qasab for every Muslim kasta to know inuu ogaado Arabic language luqadda Carabiga. And that is the reason taasina waa sababto I prefer aan u doorbada to study inaan barto Carabiga. Because maxaa yeelay Carabiga is the language waa luqadda of Islam ee Islaamka. It is the language waa luqadda which taasoo the Holy Quran-ka was written on lagu soo qoray. So sidaa darteed it is compulsory waa qasab for every Muslim kasta to know inuu ogaado Arabic language luqadda Carabiga. And that's the reason taasina waa sababto I prefer aan u doorbada to study inaan barto Carabiga.